shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa la filayaa in maanta la soo gabagabeeyo isla markaana laga soo saaro warmurtiyeed wadajir ah oo diiradda saaraya muddada doorashada lagu soo afmeerayo arrimaha muranku ka taagnaaya amniga iyo guud ahaan hanaanka dib loogu bilaabayo doorashada. shirka golaha wadatashiga qaran oo galay maalintii 6aad ayaa la sheegayaa in dhinacyadu isku soo dhawaasho ka muujiyaan inta badan qodobadii laga dooday, gaar ahaan kuwa ku geedaaman doorashooyinka. waxaase la isku fahmi waayo qodobka amniga dalka ka hor inta aanu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ka tanaasulin. wakiilo ka socda midowga musharaxiinta ayaa maanta ka qayb galay shirka golaha wadatashiga qaran, waxaana lala wadaagay jawaabta soo jeedin ay horay u sameeyeen, taas oo ku aadaneed in la saxo qodobo ay cabasho ka muujiyaan. 6dii bishan January ee sanadkan, shirkan ayaa qarka u fuulay in uu burburo oo lagu kala tago kadib markii ay soo wajaheen caqabado hor leh oo ka yimid dhanka xafiiska madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, kuwaas oo adeejinayay Lafta Gareen iyo Cumar Finish. Farmaajo ayay weli hoos yimaadaan taliska 4 ciidan ee dalka, booliiska, sirdoonka, asluubta iyo militariga oo isagu magacaabay, waxaana arrinta caqabad ku tahay inuu Rooble maamulo doorashada iyo amnigeeda sida ay sheegayaan dadka siyaasadda u dhuunduleela. dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu ka socdo dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda Soomaaliya. dagaalka ayaa wuxuu u dhaxeeyaa ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Galmudug iyo ciidamada Gorgor oo magaalada Guriceel loo geeyay dagaalkii lagula jiray kooxda Ahlus Sunna. israsaaseynta ayaa ka dambeysay khilaaf ka dhashay askar ka tirsan ciidamada Gorgor oo ka mid noqday dad ay xireen shalay ciidanka booliiska, laguna eedeeyay in ay ka qayb ahaayeen falal amni darro. ciidamo ka tirsan kuwa Gorgor oo ka carooday xariga ciidamada kale ayaa gudaha u galay degmada Guriceel, taas oo keentay inay isku dhacaan iyaga iyo ciidamada booliiska ee saldhigga degmada Guriceel. sida ay dad goobjoogayaal xaqiijiyeen, dagaalka ayaa waxaa ku dhintay 2 askari, halka 2 qof oo mid kamid yahay shacabna ay ku dhaawacmeen. wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in labada ciidan ee dagaalamay ay weli is hor fadhiyaan, waxaana ciidamada Gorgor ay joogaan agagaarka shirkadda Beder 1, halka ciidanka booliiska ay ku sugan yihiin saldhigga booliiska ilaa dhabarka dambe ee quraaca maqaayadda la yiraahdo Xadiyo Cad. ugu dambeyntiina war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa dood xooggan ka dhaliyay baraha ay bulshadu ku wada xiriirdo internetka kadib markii ay wasaaraddu shaacisay in dadka baraha bulshada ku taageera madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka khatar badan yihiin fayruska corona. qoraalkan oo la soo dhigay bogga Twitterka ee wasaaradda caafimaadka ayaa saacado kadib laga saaray bogga ka gadaal markii ay si weyn uga falceliyeen dad fara badan. mowjadda labaad ee CBB waxay ka khatar badan tahay corona, fadlan ka fogow Twitter Space ayaa lagu yiri warkaas oo ku qornaa luqadda Ingiriiska. CBB waxaa loo soo gaabiyaa cayayaanka baraha bulshada, waxaana loo yaqaanaa taageerayaasha Farmaajo. arrintan ayaa u muuqata mid looga falcelinayay kulan xalay ka dhacay Twitter Space oo ay ka qayb galeen in ka badan 3,000 oo ah taageerayaasha Farmaajo, isla markaana ay hadallo ka jeediyeen gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin, qareen Axmed Naasir Cabdullaahi iyo aqoonyahan Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed. sidoo kale isla xalay waxaa Twitter Space ka dhacay kulan kale oo u muuqday in looga soo horjeedo Farmaajo, ayna ka hadleen dad uu ka mid yahay Matt Biden oo ka tirsan hay'adda Sahan Research. bogga wasaaradda caafimaadka ee qoraalkan dooda dhaliyay lagu daabacay ayaa waxaa loogu talagalay faafinta xogta la xiriidha xanuunka COVID-19 oo weli ka jira Soomaaliya. wasaaradda ayaa kadib qoraal ay soo saartay oo ay isaga fogeynayso arrintan ku tiri wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya waxay cadeynaysaa in qoraalka idinka muuqda sawirka hoos ku lifaaqan ee lagu daabacay bogga ciwaankiisu yahay Soomaaliya COVID-19 uusan ka soo bixin wasaaradda, bogguna uusan ka mid ahayn baraha bulshada rasmiga ah ee wasaaradda caafimaadka gacanta ku hayso. si kastaba xogta dhacdooyinku waxay xaqiijin kartaa in boggan uu hoos tago wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya, inkasta oo markii hore laga sameeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha xilligii Xasan Cali Khayre.